meel kasta joogtaan abtiyaalo iyo wax kasta idin tahayba bacda salaan waxaan gurigii dhamaaye ina tuurna seextir gurigiisa inaan wax badan sameeyo wax badan si aan dhibantay amar miti hey waxa maraan qaadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada mar labaad muuqaal cusub walaalkii wardaadan halka naga soo bartan kulan YouTube ka YouTube waxaan martii kaaganay haddii aad ku cusubtahay kanaalka in subscribe noo saarto YouTube-ka soo kale muuqaalka noo like gareyso oo share gareyso oo la wadaagto asxaabtaada fikirkaaga iyo aragtidaada isku dayna xaq hoose aad nagu reebto dabcan muuqaalkayga waxaan doonayaa inaan kaga wada hadalno xaaladda laascaanood maxaa ka soo kordhay halkay wax marayaan runtii maasha Allah waa wax Ilaahay lagu mahadiyo ku saddex waqtigan aan fiidiyoga soo duubayo oo muuqaalkayga uu soo gaarayo waa maalintii aanay rasaas ama xabad dhawaaqeeda aan laga maqlahayn gobolka Sool ama magaalada Laascaanood waxa Ilaahay lagu mahadiyo waxaan rajaynayaa nabadda iyo xasiloonidaasi inay ahaato mid waarta oo runtii sababta in dhalinyartu ay waxbarashadooda u dareerto goobihii ganacsiga la furo taas baanay markaasi wanaaga iyo sulxu ku jira halkan muuqaalo fara badan baan noogu hayaa muuqaaladaas waxa weeyaan muuqaalo dhan walba ah runtii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii saddexaad iyadu ciidankeeda yani ku amartay inaanay wax dagaal ah ama wax weerar la qaadin sidoo kale ciidanka iyaga laftoodu Sool difaacanaya ayaa iyaga laftoodu xaqooga waxa la sheegaya inaanay markaasi wax dhibaato ah aanay ka iman fiidiyo fara badan baan halkan rabaa inaan idinkaga warbixiyo muuqaalo sawiro iyo runtii colaad يعني intaasi dhibaatadaas socotay wiil iyo hooyadii oo kala dhaqaaqay intaas oo dhan waa islu taagi doona bal soo dhawaada waxaan doonayaa marka koobaad bosti wiil dhalinyar ah oo gobolka Sool ama deegaan ahaan Sool ka soo jeeda bosti aan arkay oo aad iyo aad aniga runtii in naxdin galiyay muruga galiyay inaan waa wiil dhalinyar ah wuxuu bartu ku leeyahay Facebook oo ku soo qoray waxaan biilkii ka goostay hooyaday Farxiyad Diiri oo ah isaaq habar jecel ah $150 oo aan siin jiray waxaan siinayaa ciidanka SSC ayaan u wareejiyay $150 oo aan hooyaday oo isaaq ah siin jiray waa hooyaday aniga ay dhashay sidoo hadalka u dhigay waxaan u wareejiyay lacagtii intaan ka goostay ciidamada SSC postigan sabab baan soo qaatay dadyo fara badan baa waxa ay ilhaayeen postiga kan waa posti been ah hadaba postigan laftiisa commentiga ka hooseeya ayaa ah inan iyaduna runtii ku taageertay inuu lacag wiilkaasi ka goosto postigu haduu been yahay qoraalka hoose miyuu markaas been noqon karaa waa maya waxay tiri nasab dhalay awalba aabaha islaan waalan oo door ah doqonnimo u geysay xaaladdu Sool halkaas ay maraysaa inay wiil iyo hooyadii ku kala dhaqaajiyaan wiilka postiga soo qoray iyo inanta commentiga ka bixisana waxaan maleynayaa bal isirkoodii ama farcoodii dib loogu noqdo intaasaan ka leeyahay bal waxaan doonayaa inaan halkan laftiisa aad ila aragtaan posti ama qoraalo la soo dhigay aalada baraha bulshada Garajaamac oo isagu laftiisu ay dadyo fara badan lahaayeen waxa uu yimi Sool inaynu bal insha Allah bal Sool may wuxuu yimi gobolka Caynabo markaas postiga waa halkan ka muuqda weynay aragtaan dadyo fara badan baa waxay soo dhigayeen Garajaamac oo ah yani garaadka deegaan ahaan ka soo jeeda gobolka Sool inuu yimi magaalada aan ilaahay Ciilafweyn uu kuna soo food leeyahay gobolka Caynabo si uu runtii wada hadalo ula furo salaadintii magaalada Hargeysa ka tagtay ee wada xaajoodka iyo gorfeynta markaasi u tagay gobolka Sool nabadda markaasi fidinayay insha Allah waxaan rajaynayaa garaadkaasi in runtii Ilaahay ku guuleeyo hadii ay run tahay walow dadyo qaar ay lahaayeen waa been laakiin Ilaahay waxaan rajaynayaa inuu bal ku asturo xilka uu qaaday waxaan doonayaa asxaabteeda qaaliga iyo qiimaha badan leh inaad ila daawataan buuhoodle runtii guri aad u waaweyn oo la burburiyay gurigan bal muuqaalkan ila dhageysta gurigii dhamaaye ina tuurna seextir gurigiisa laga dhigay jamaahiirtii buuhoodla saa ka dhigay laandheeranimo nin kasto horgala wallahi waxaan ku dholo kubsanayaa halka gurigiisa waa la ololiyay ilaa jingadihiisa waxaan ku dhakadii laga qaadayaa inuu reer buuhoodla gobsanaa
baa fiideoga duubasa waxay leedahay waa muwaadin reer Buuhoodla dhalasho ahaan deegaan ahaan Buuhoodla uu ka soo jeedaa hantidiisii iyo asadkiisii uu lahaa ee magaalada Buuhoodla uu ka dhistay ilaa Hargeysa uu ka dhisan karayay isaga deegaankiisii ay tahay uu yiri magaaladaada horumarkeeda ka qayb qaado wata qaabka loogu burburinayo nabad bay Soomaalidu waxa ku mahmaahda naas la nuugale dadyoga waxyaalaha sameynaya falalka argagixisada ee dhaqamada ah ku kacaya waxaan leeyahay wadadyo aan innaba maskaxdooda aanay habeen jirin bal waxaan doonayaa asxaabtayda qaaliga iyo qiimaha badan leh bal iyada lafteeda najma nashaad oo runtii sheegaysa sababta runtii ku galiftay ninka weyn ee dhif wiilka yar bal wuxuu u haystay oo uu dhahay inay la dhageystaan meel kasta joogtaan abtiyaalo iyo wax kasta idin tahayba bacda salaan waxaan halka kala hadlayaa dhifqo waxaad socotoba meelahaya saddex sano jira ee saqiirka in garanayba dadka ka bayd ayaad soo hada qaaday mid waa mid oo anigu kaalama hadlaya dad bay taalayna ka hadlaan laakiin waxaan xaq u leeyahay hooyanahay ubadkeeda aan jeclayn in la soo hada qaado ilmahayga yar aniga dhalay wixii iga dhalay baa joogan in nabadgeli carabkaaga ku soo qaadi ammaan ilaahay ha kaa helo waa ilmo yara hadal haynta iga daa kolay waxbaad dhashay anu kuma hadal kuma oranayay hadal xunayga ma geeyay laakiin ma geeyay nabadgeli imka masqiirka kayna cawaalada isku toosan ka haya naxisho waxa ku oran laaba carab meesha ugu dambeysay ma marsan laakiin waxaan isku celinayaa maadaama meel kala jirin oo dadku isku la wada yahay ma sha Allah waxa tiri waalid baan ahay iyadoo taasi jirta على هودا سمرية تدخل ودتك ميل لك لتجمعه قاب كائن من الشهادة هذا الشيء قابات قيمة بدن وي تديوجا عن عقل جود هبين شيرين هبين عن شيرين أنت براه بشيء سوي استعجان دين تيجي فضيحة عاية بروا قبل أن أدي أدولا يا أبي أو ولي بقى كنت كوكنا أحسن إن النبي عايدو دين تنا عايدو في الجادس بلي لقي صوتنا واري أي دور دواعيو ولا قوي يا رسول الله عليه وسلم ربي يا الله رسالك بريدي وراعي سكاراتي والله قاعد يجي سغاشك كل سغاشك والله قاعد سبحان الله هذا بدت كيني دجال قيب كاسو كلا قيبي بدت كيني مليه هنا waxay noqdeen dad midiyo iyagu isku wata halkii wanaaga iyo suluxa iyo xumaanta ay markaasi ka dabooli lahaayeen iyagii baa muuqaalo fool xun oo ayna shaqeesh qolkulahan soo duubay baraha bulshada imanaya war gobolka Sool iyo dadka jooga wadada gob ah wadada xariira wadada gobanimo ilaahay u dhaliyay meel inaan tagi waan ogahay hadaan reer Soomaaliland nahay dad wada dhashay baynu nahay dad dhiig isku yaala baynu nahay waxaan aad iyo aad idinka codsanaya sharaf iyo karaamaad leedihiin إن هذي عطش وحلو قد إني ما هو رتقيني ديني وما أوجه بيه إني نوحي إنه ضنا إنه لين وهالبابا عين سمينه حكومة أنا وحن أديات وبورنية وهالإما هذا ريال نبت بالناس اللي ندوق عليه تقالوا يلبانا كل شيء ولكم ويلباكون أنت ولكم ما نشيء بالحالة إني قبوتية ونوحي له لو ما دي ما أنت ستحد وحرير إن أنا قبل كسول أنا رتاس كذا وحنا رتشيني إني هاوش على كاسو سعته كرات شامع ومقالة أنا راح أقول فين يمين هدي أي حقيقة هاي كلي نبضهم بوضعي بل نبض أسيق تدير هلو ليس أدوى ما سنتين متشاري مقالك يعني كل رادو تاني مقالك مقال حقوقنا يقول لك ورتي أذن ودله كان مرة تسوق الدين تشوف سبسكرايب نوصارة سوق المقالك نور لقرية وشير كريلو ده أصحابتنا فكر كنا ركتين سودين حاجة وسه أنا قربت واحد كده كيان باي باي